السلام عليكم وعليكم السلام. السلام عليكم وعليكم السلام. waxaan yar baraarujinayaa qof walba kulay deesay meesha inagu faa'iido qabno uga tagno waana yar dibijinayaa ina kulay qalinkiya adab yar dul haysan toobiga koowaad aan doonayna ku bilaabo waxa weeyaan way kala muhiimsan yihiin sidee qofku samaysan karaa caado wax akhris akhrisku waxa la sheegaa waxa kaliya maskaxdeena kobciya inay yihiin akhriska adaba qofkii dareensanaa saasoo kala dareensanaa inay akhrisku faa'iido badan leeyahay sidee buu samaysan karaa caado wax akhris kulay waxaan la wadaagayaa ilaa 6 tabood ama 6 qodob oo haddii qofku uu sameeyo uu samaysan karaa caado wax akhris 6 qodob insha Allah kulay haddii aad samaysatid waxaan rajaynayaa inaad caado wax akhris samaysatid qodobka koowaad lagaga baahan yahay inaad samaysatid ama aad ku dhaqantid marka doonaysid inaad caado wax akhris samaysatid waxa weeyaan in laga helo ujeedo aad wax akhriis ujeedadu waxa noqon karaysaa waxa isweydiinaysaa su'aasha maxaad wax akhriyaysaa waa maxay sababta aad wax akhriyaysaa maxaad wax akhriyaysaa why are you reading something maxaad wax akhriyaysaa marka su'aasha isweydiisid dadku waxay wax akhriyaan siyaabo kala duwan dadka qaar baa wax akhriyaan inay aqoon helaan dadka qaar baa wax akhriyaan inay xog helaan dadka qaar baa wax akhriyaan in ay maskaxdoodu kobcdo oo maskaxdu kobcdo korto dadka qaar baa siyaabo kala duwan dadku wax akhriyaan marka ay isweydiin sababta wax akhriyaysaa waxay sababta wax akhriyaysaa waxay ka caawinaysaa in internal motivation heshid wixii aad ku jiido marka maanta aad wax akhriyaysid inaad xog heshid ama in maskaxdaadu kobcdo kaba soo qaaddo tusaale ahaan maskaxdaadu kobcdo wax akhriyaysaa markasta aad doonaysid in maskaxdaadu kobcdo ama maskaxdaadu korto waxa kugu khasab inaad wax akhrisid waayo waxaad go'aansatay inaad waxa kaliya maskaxdu kobcinaya tahay akhriska marka ujeedaha laga helo aad wax akhriyaysid ujeedooyinku way fara badan yihiin dadku ujeedooyin fara badan bay wax akhristaan marka hal ujeedanaha laga helo oo wax akhriyaysid waa qodobka koowaad qodobka labaad ku sahlayna ama ka caawinaya caado akhrisinaysid waxa weeye start simple ku bilow barbilow fiican barbilowga fiican wuxuu ka caawinayaa barbilowga wuxuu noqon karaa barbilow fiican dhowr hab uu noqon karaa kow waxaad ku bilowdaa موضوعات حسين سوف يفتح موضوعات انترست حساب دعوه حسين كله سبحان سوى الروح قبله كتب بيكتغا سواء معقول كو هي مركز سلاك كوريس او مركز جنجرده كوريس ترنجرده توسو رسمه يعني معقول واحد بيات متنافس ولا بي كوبال laga sa ama tobi kobal laga sa ku ana macquul marka barbulo fiican ku bilow barbilada fiican wuxuu noqon karaa inaad topic aad xiisaynayso ku bilow kow laba topic ama book aad iyo aad u kooban 100 page 120 page 120 page hadda intuu noqdo labadaas markaa barbilo fiican uu uga dhigay labada heshid ay wax ku sahaysan inaad sameeysid qodobka saddexaad laga doonayo yeelatid ka caawinaysa inaad caado wax akhrisanaysid waxa weeyaan ku xidhiidh caadooyinkaaga waaweyn mid ka mid ah ama keystone habit waxa loo yaqaan sida uu sheegayo qoraaga buugan Charles Duhigg waa qoraa Mareykan the power of focus loo yaqaan wuxuu leeyahay qoraagaasi waxa ku jirta chapter buug waxa ku jirta chapter loo yaqaan keystone habits waxa weeyaan caadooyinkaaga waaweyn caadooyinkaaga waxa ka mid ah tusaale suuxi markaan inagu islaamahay suuxi markaan soo kacno kala waa caado weyn suuxi markaan soo kacno salaada subax tukano waa caado weyn markaan shaqada aadayno waa caado weyn shaqada markaan ka soo ruuxno waa caado weyn markaan sii saxayno waa caado weyn oo sameysano maalin walba daily habit marka qoraag wuxuu ku leeyahay marka doonaysid inaad wax caado cusub samaysid caado cusub marka doonaysid inaad samaysid ku xiriir caadooyinkaaga waaweynaa caadooyinkaaga weyn tusaalaan wala caadooyinkaaga kala yaqaana janbada noloshaada caadooyinkaaga maalinta ku dhaqateeda yaqaan mid kamid ah caadooyinkaaga waaweyn ku daba xiriiri oo ku xiriiri tusaalahaan qisayran uga soo martay kiisman habka waxa dhacday maalmaha kamid ah waxaan bilaabay markastaan odadhesk shaqada imaado waxaan akhristaa quraan waan akhriyo muddo markan 60 cisho wari
شنو لحدن أدو لو بلود سنتي مركن ودي أيا قرآن كي أنا خرسني وحول النقطة أوتوماتيك عادون كي يجينا وكلا ولا من النقطة سواء كلا عادون كي يجينا وحيد صبيحي مركن شغل المادة عادوي مركز طبعا صبيحي شغل المادة مسك يجر كوسي يجر صوفر يستو وعادوي مالك استسمعي عادون بسمع الله من حوينا قرآن خرستو قرآن أخرستو أدو مدشة لحد العشاء تضبط العشاء مركن ودي أوتوماتيك بيوحى ولا من النقطة تيدي خوري شغل أنيمني يقرأ عادون كي يجينا ولا من النقطة كل عادونكو waxaa la qiyaasay inay ku samaysmaan ilaa 60 cisho adigu toddobaad ilaa 8 inta u dhaxaysa ay ku samaysmaan toddobaad ilaa 8 inta u dhaxaysa ku samaysmaan markii damaan isweydiiyay tolo maxay aduba ahaan weeyay quraankan aad akhriyaysid maalin walba subax markaan shaqada soo galo su'aalo sababta isweydiiyay adigu markaan waxyaabo baaray buugan ayaan xitaa ka baaray waxaan ogaaday in caadadu aan ku xidhiidhay caadada cusub kadib automatic ay noqotay caado caadi oo noloshooda ku soo biirtay kadib sidii baan ku dhaqan gashay marka adigu halkan waxaad uga faa'iidaystaa akhriska marka caadooyinkaaga weli aad isaay u tijaabka caadooyinkaaga weli ku xidhiidhay caado kamid caadooyinkaaga weli dadna waxa ku fududaanaysa caadadii inay samaysmato aqoonyahanadu barki dambana research badan baa laga soo saaray waxay ogaadeen in caadadaada weyn ay ka caawinayso caadada cusub inaad samaysatid marka waxa ku fududaanaysa inaad caadadii cusub samaysatid qodobka afraad laga doonayo inaad isla la timaadid waxa weeyaan la iyo wax kiciya isla markaana aad ku fahamtid ama strong and obvious reward سلمي جوجل the power of optics ayaan topican aad iyo aad uga soo diyaariyo inta badan wuxuu leeyahay qoraaga Charles Darwin wuxuu leeyahay marka doonayso wax ka tirsan topic chapter ah sida caado cusub oo abuurto marka doonayso inaad caado cusub abuurtid wuxuu leeyahay laba waxba laga doonaya waxa jirta habit maaragtay waxa jirta saxan kaayar waxa jirta استراتيجية أو شقي سامة هلا وشقي ساعدين كده واحد شراء كيو واحد كعيا شراء سيدا كلا واحد شراء ريوارد واحد لقاها كده بروتين كفعل كيسا كيمانية كيو واحد كعليه بروتين وفعل كاد سميسي ريوارد على المريض تفكيرس فقرار بحلي هاي مركز دولي سيناد على أسم مركز دولي سيناد بروتين لا ينو كيو حوكن كيو بحنا نوان كرايا ما بحنا نوان كرايا إناد طيب نوان كرايا سايت نوان كرايا واحد ميلاد كاركيس بوغا بيغان كريسا وحنا نوان كرايا بريسو كلام نوان مكتبه كلام نوان كرايا فريم نوان كرايا صاحبه كلام نوان كرايا دي مرة بكودي قال كيو وكرايا كيو وحي كعيا عادة إلى تسميسي بروتين كله فعل كاد تسميسي ريوار كله على مرتب كيسي مرة كيو وحنا نوان كرايا إما وحنا نوان كرايا طيب نوان كرايا والطيب عينه قاسن كرايا خبصان قال 5 بورات 7 بورات 6 بورات كيو نوان كرايا sidoo kale beliis baad ku dari karaysaa haddaad wax oo dhan ku dari karaysid isku dari karaysid ku wada audio sensitive-ka shanta dareemaha haddaad ku dari karaysid isku dar kala saddex la isugu keensid meesha alaam yaraad moolkaaga ku xidhan jido toddobada markii gaadho maalin kasta kugu qaylisa laakiin kiyub buu noqotay inaad buug akhridid sidoo kale waxaad ku dartaa meelaad ka arkaysid buugga dhigo tusaale marka subaxii soo kacday kala salaad marka tukatid meelaad ka arkaysid oo kala beriis oo kala meel cayiman oo kursiga miisyaro cayiman maalin walba inaad ku akhridid ريوارد كنا وسيجو عن كريسة صار كلام مركن قلب كيكو هذا نيجي شيء مركن دونس على سوسميس قلب كيكو وضوحها إن لقاه لا يشدوا الحقريس يشدوا الحقريس بين المقر مسك حيواني كبعض ريوارد كدونس كيل سحوين إن مسك هذا كبعض مركن كستوى الحقريس مركن ريوارد كل كاسو مقنية مركن ريوارد عد لو كيو واحدة اللي عليها كوكية لا ينو قلب كشناد laga doonayay ama ka caawinayay inaad caado akhrisato waxa weeyaan ku xidhno bahda akhriska kulay waxa la yiraahdaa saaxiibka wuxuu yeelan baata maanta saaxiibka haduu yahay qof meelaha maqaaxiya ka shaaheeya fadhigu dirada fadhiista waxa laga yaabaa laba mid bay noqonaysaa ima adigu inaad soo jiidatid adigu waxa doonaysaa caado cusub sameeyay Soomaa ima adigu inaad soo jiidatid oo soo geysid واد سوتشي دتيسم أما إنه يسوق سوتشي أو يسوق كحوق بطو واد فدك الدرادي يشاء مقاحين لما شاهين يلي دوني يسوق على تشعلاتي ولا دوني مركا حدا صاحب كاي حجان
ayuun baa tahay adigu marka haddaad doonaysa inaad caado wax akhrisamaysid waxaad ku xidhnaataa bahda akhriska mar walba kaa dhow ku xidhnow bahda akhriska waxaa soo geli karayaa buugshoobada sida maktabadaha kale ayaa soo gelaya waxaa soo gelaya allahuma salli calaa maxamed qoraayada kaa dhow dadka qodobka lixaad ee lagaa doonayo inaad caadada kuu sahlay inaad samaysid waxa weeyaan joogtaynta consistency waxaa jira xeer loo yaqaano the law of consistency xeerka joogtaynta xeerkaasu in badan haddaad ku dhaqantid caadooyinka waxa la yidhahdaa waxyaabaha caadada akhrisku waxa la yidhahdaa caadooyinka ugu adag caadada akhrisku marka haddii aad joogtay haddaad wiigii 3 jeer wax akhriday 3 cisho wax akhriday waxa laga yaabaa inay caadadii kugu adkaato inay kuu samaysato marka haddaad doonaysa inay caadadii kuu samaysato muddo kooban oo 60 cisho 2 bilood hadda si aad u qaadanaysaa 2 bilood 4 adug waxa la yidhahdaa 7 toddobaad ilaa 8 toddobaad inta u dhaxaysa haddaad doonaysa inay caadadii kugu samaysato consist gare oo joogtay mar walba كل وحقرسكو عايو وحقرسكو حلا عايو كوادك وحرجيني يعني عايو إن شاء الله يبي سمسي فهمته الحلا قدر وقت وقبل إنتاسن كسوكوبيا كل الموضوع عادو ليرا لكن إتال كذا بالكوبان سري هدين ديريين على جرع هذا وحندير رجيني إن حرفدين أخرس كرو قادان إن أخرسين أكثر نقطان مكان إنتاسن كسوكوبيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.